maalin maalmaha ka mid ah baraf aad u weyn ayaa nagu da'ayay. Gurigayguna meel bannaan uu ku yaalay. Habeenkaas aniga iyo walaalkayga yarun baa guriga joogay. Walaalkayga yar uu hurday, aniguna TV baan iska daawanay. Albaabkaa la soo qaraacay saacaddan eg 2 habeenimo yaa xilligan albaabka qaraacaya. TV-gaan damiyo waan dhegaystay. Albaabka xoog loo soo qaraacay. Meelaha 3 ilaa 4 nin ayay ahaayeen. Aniguna maalinkaas waxaan ahaa 14 jir. Naxdin daraaddeed waxaan eegay daaqadda. Isla markiiba dib baan u soo dhacay markaan arkay nin isoo eegaya. Markaan waan kacay, waan cararay, telefoonkan ku cararay. Booliskan wacay. Markaa telefoonka layga qabtay waxaa laygu yidhi barafka daraaddeed in badan bay qaadanaysaa intuu boolisku ku imanayo. Markaana waxaa laygu yidhi orodoo walaalkaaga yar qariyo shanqadh ha samaynina ilaa inta ladin imanayo. Anigoo walaalkayga yar ku cararaya ayaan isdhahay malaha way tageen. Daaqaddaa ku noqday, cidna mayna joogin. Anigoo farxad dareemaya ayaa la soo jabiyay daaqadda kitchen-ka. Markaan maqlay daaqadda la soo jabiyay, gebigayguba naxdin daraaddeed waan qalalay. Anigu waxaan isdhahay gurigoo dhan ka carar, laakiin walaalkayga yar kama tegi kari. Korkaan ku soo cararay, isla markiiba waxaan maqlayay dad oo guriga soo galay oo isoo eryanaya. Markaa walaalkayga yar afkaan qabtay waxaan ku yidhi isoo raac. Kabadhka ayaan galnay. Kabadhka markaan xogaa yar aan ku jirnay, albaabka qolka ayaa la soo furay. Isla markii walaalkayga yar isagoo qaylo gudfays leh ayaan afka qabtay. Shanqadha aan maqlaynay waxaan filayaa hal qof oo keliya muuna ahayn. Annagiyo naxdin indhaha taagtaagayna ayaan maqalnay booliska gaadhigiisa oo soo ciyaya. Xogaa yar kadib albaabka ayaan soo furay. Markaa waxaan maqlay meelaha 3 ilaa 4 qof oo jaranjarta kasii dhaadhacaya oo sii baxsanaya. Raadkooda ayuu boolisku raacay oo laga soo helay geerashkayaga. Boolisku kadib wuxuu noo sheegay mid nimanka ka mid ah inuu baaskoolad watay.